waxa mataqaanaa ana mid ku sheegayo oo sax ah oo adigana ay sheegtay waxa ugu muhiimsan nolosha mataqaanaa qofka guusha gaar waxa waaye qofka talada iyo tusaalaha iyo wanaaga iyo wax sheeg oo kala dhaxayso qofka la nool marka aragto qof dhahayo qof kala talada igala dhaxaysa oo reerkiisa ka maqan waa dadka inta ugu badan talooyinka qaldan la siiyo aniga waxa aaminsanahay xitaa madaxweynaha haduu xaaskiisa bisla tashan lahaa guul darro u saxilan haddii aan noqdo taariikhda ku galo hadal waxaan jeclahay inuu wax badan dhalinyaro maadaama haween aad tahay hooyo aad tahay inuu maxaa la ii sheeg haween badan ama dhalinyaro badan ama weyn ay yar inuu maskaxdooda maxaa la wax ka bedelo markii loo eego dardaarankana wax badan baa ka fahansan tahay oo qof waxa tahay experience fiican leh oo bulshada aad ugu dhex jiro muxuu yahay hadalka maanta dhalinyarada ka yaryar ama kula faca ama maanta ka maskaxda yar oo aad ka garaad wanaagsan tahay hadalka afari lahayd oo role modelka maadaama fanaanad caan aad tahay fanaanad qaran aad tahay oo fanaanka weyn ee Dhagaxdar Nuurshe oo fankiisa maalmihii ugu dambeeyay isbedel ku sameeyay ayaa fariin u diray madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud fanaanka Dhagaxdar Nuurshe ayaa bilaabay barnaamij magaciisa la yiraahdo Dhagax Show oo ku wareysanayo fanaaniinta ugu caansan magaalada Muqdisho barnaamijkaasi ayuu maanta daafuray wuxuuna ku bilaabay wareysiga fanaanada Shaadiya Sharaf oo kamid ah fanaaniinta ugu waaweyn ee fanaaniinta Soomaaliyeed ahna majaajilista dadka aadka ugu qusursiisa Shaadiya Sharaf ayaa kamid ah fanaaniinta haatan waqti xaadirkani aad u xiiseynayaan dadka fanka xiiseeya waxay wareysi dheer siisay fanaanka Dhagaxdar Nuurshe wuxuuna ku casuumay barnaamij magaciisa la yiraahdo Dhagax Show Dhagaxdar Nuurshe su'aal ay weydiisay Shaadiya Sharaf ayuu wuxuu ku jawaabay madaxweynaha Soomaaliya waxaan kula talinayaa in uu xaaskiisa amarkeeda qaato ayuu yiraahday fanaanka Dhagaxdar Nuurshe wuxuu kale u raaciyay madaxweynaha wuxuu yiraahday haddii aad xaaskaada markasta amarkeeda aad qaadato waad guuleysanaysaa waxa sameeyay madaxweyne xaaskaada amarkeeda qaado ayuu yiraahday fanaanka Dhagaxdar Nuurshe mar uu wareysi ka qaadaya fanaanada Shaadiya Sharaf fanaanka Dhagaxdar Nuurshe ayaa fanaan ay aad u jecel yihiin gabdhaha Soomaaliyeed hab dhaqankiisa fanaanka Dhagaxdar Nuurshe ayaa balan ku qaaday in uu xaaskiisa xaaska la guursan doonin wuxuu aad u jecel yahay xaaskiisa Farxiyo wuxuuna dhahay awaal weyn ayaan u hayaa xaaskeyga Farxiyo nimanka qaar ma jiro in awaal noocaasi u galaan xaasaskooda waxaan aragnay nin xaaskiisa intee siisay 300,000 haatan la soo fadhiistay ninkii ayaa dhacay xaas kale ayuu ku guursaday lacagtii aan ugu deeqay in aan nolosheena aan ku horumarino dhacdooyinkaas oo kale ayaa iska jira magaalada Daabo muuqaal ee soo duubtay gabadhani ee ugu hadlayso in ninkeedu uu ka dhacay lacag gaaraysa 300,000 ee caruurteeda xataa ee ka cishay waana arin naxdin iyo ama ka ku reebtay qof walba oo Soomaali oo insaan ah ee damiir leh dad badan bay dhahaan ma iska samartid iska samar 20 sano baad ku siiyay iska samar waxaan samraa 20 sano waxaan kula noolaa 20 sano oo waxaan iskula joognay inuu boyfriendkayga yahay dowladda ayaana biili jirtay 20 sano lacagta aruuris gaariga xataa gaari dukh 1992 gaari feena oo had mar walba jadwalba ku jabaayo ayaan watay taasna waxay iga ahayd lacag aruuris iga ahayd lacagtii 300,000 20 sano aan aruurinayay kaza guri lagu gaday ahayd Soomaali gurigana isagii naagta cusub ayaa isla degeen ma fahantay marka hay dhehen samar hay dhehen
ay dheheen samar 20 sano waxaa aruurinaysay adiga marka ugu dhacdo ma samar sida loo samro way adag tahay sida loo samro 20 sano shaqo xamaal 20 sano ilmihii xataa maqaayad xataa ma geyn jirin lacagta aruuris waxaas leeyahay ilmaha markay soo weynaadaan labadiina waa isla tegaysiin waqtigiina waa isla dhamaysanaysiin hadda intaan waqti isla dhamaysan lahayn naa kalaaba iskaygii soo gashay ay dheheen samar ilinta way iga dhamaatay hal bil baan oynayay hay dheheen samar lugahayga waan jidkaan soo marin maada soo marin hay dheheen samar hada lacag ma hayo nin ma hayo waa kaasaa bil walba waa kaasoo baxayo dalxiis aadayo anigan ilmihii ma hadli karo intaasi ayaa kusoo gabagabana barnaamijkeena. fadlan muuqaalka leegaray siina sheer garay barnaamijyada halkaani aan kusoo gudbino. waad ku mahadsantahay daawashada aad daawanaysaan barnaamijyada.